magacaygu waa Jamiila Xasan Ciise waxaan ahay maamulaha maxadka tababarka umulisooyinka Jubbaland. Alxamdulillah maanta waxaan soo gaarnay dufcaddii saddexaad inay u fariisanayaan imtixaankii finalka ahaa ama qalin jabinta iskuulka kaga baxayeen. maasha Allah imtixaanka waxay noo keentay macallin nadiifo oo noo keentay Muqdisho ayadoo ka socotay iskuulada tababarka umulisooyinka ee South and Central Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya iskuulada ka wada jira. imtixaanka way noo keentay waan ka gudoomaynaa insha Allah. sida Jamiila noo sheegtay dufcaddii saddexaad ee Jubbaland umulisooyinkooda ka qalin jabinaya waana nidaam iyo sharci u yaala dadka imtixaanka wada ma ahan inay waxa adinku inaan aqoon ay idin keeneen laakiin nidaamka iskuulada u yaala wuxuu yahay in imtixaankooda meel lagu wada diyaariyo meelna lagu wada saxo qalin jabintooda gabdhaha sidaas hal meel looga wada maamulo siday dad isku mid ah ay u noqdaan sidaas darteed aan imtixaanka u wadaa maanta oo taariikhdu tahay sanadka cusub bishii koowaad. alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay idankiis guulna waa idin rajaynayaa imtixaankiina idin sidana waxaan ku wareejinayaa maamulaha Jamiilo ayada ayaa insha Allah imtixaanku waa kaas wuu xiran yahay waxaan noo furayso nasteexo oo ka socota wasaaradda caafimaadka Jubbaland una qaabilsan reproductive health insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aadan maanta ugu faraxsanay yani inaan arko gabdho qalin jabinaya waliba loogu tababaray midwifery loogu tababaray aad baan waxaan ugu faraxsanahay dafcaddii saddexaad inaad tihiin oo maanta ka baxaysa macadkan waa guul weyn oo u soo hoyatay way Jubbaland ma meeshii aan ugu gudbi lahayn umulis dhaqameed intaano gabdho maanta haday wax bartaan oo midwifery noo barteen guriyaha haday ku laabtaan iyo meelihii degmooyinka laga keenay waxay wax badan way bedeli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo hooyo badan oo dhigbax u dhimanaysa ama hooyo badan oo waxyaabo easy u dhimanayso umulis dhaqameed ama ilmo yarteetan ku dhacay maalin kasta insha Allah waxaan jecelnahay ka gudubno waajibaadka lidin xil saaray muddadii halkaan ay faa'iido jaaniska ugu faa'iideysateen sidii lidin kugu faa'iideeyay idinkan inaad ugu faa'iideysaan hooyooyinka Soomaaliyeed qof walbo maanta halkaan fadhiyo waajib baa saaran ogo hooyada sayta maskiinta ay ku dayacmayso meel kasta waajib idin ka saaran insha Allah guul baan idin rajaynayaa baan jaanis aad ugu faa'iideysateen. magacaygu waa Faadimi Yusuf Cabdullaahi oo ka tirsan gabdhaha ka qalin jabinaya maanta iskoolka midwiferyga Jubbaland KMTI waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta noo suurta gasho imtixaankii oo sugeynay 2 sano inaan maanta galnay oo nasiib noogu soo dhamaatay fiican alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiinteyda waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay imtixaankeena waxaan kale oo u mahadcelinayaa dadkii garabku nagu siiyay inaan maanta heerkan soo gaarnay iskoolkii iyo wax walba naga soo qabtay run ahaantii farxadeena maanta lama soo koobi karo because waxa bartay cilmi maanta hooyo oo yani xanuunsan aan ku daaweyn karo ama ku badbaadin karo run ahaantii waxaan rajaynayaa inaan noqdo mid dalkeeda iyo dadkeedaba anfacdo oona maanta booska istaagto yani boos fiican ka istaagto gabdhaheena dhan waxa ugu baaqi doonaa in laga maarmo TBA-da oo caafimaad badan helo si looga hortago maternal mortality-ga oo wadankeena saaid ugu sii badanayo insha Allah waxaan rajaynayaa inaan fursadaas ka faa'iideysan. aniga waa Kawsar Aadan Ibrahim oo ka qalin jabisay ardada sanadkan 2020 ka qalin jabisay iskuulka midwiferyga ee Jubbaland Ismaayo Midwifery Training Institute waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta noo soo dhamaado imtixaankeenii muddo badan ku rajaynaynaa inaan galno aanu noqono umulisooyin dadkoodii dalkoodii wadankooda intaba anfaca insha Allah waxaana maanta dareenkayga ku cabirayo mid aan aad loo soo koobi karin oo ku faraxsanahay farxadda ani kaliya ma faraxsanahay iyo gabdhaha kale oo dhameynay college inteena waa faraxsanahay inuu Ilaahay riyooyinkeena noo wada rumeeyo saariyada maanta noogu rumoodeen kuwa kale noogu rumeeyo.